intan qodob aan kuu sheegi doono waa inaad joojisaa sida ugu dhaqsiyaha badan haddaad rabtid inaad suuqan guul ka gaartid sababtoo ah aniga markaa trading bilaawayay waxaa xog weyn u helay 6 bilood ugu horeysay haddaa aad totally joojin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaad muddo 6 bilood gudeed aa noqon lahaa qof guuleysta adiga marka laga yaabo inay dhowr sano kugu qaadatay si aad u fahantid qodobadan mise horey aa u ogeed laakiin ilaa hadda ay ku dhibaan laakiin wax walbo aan kuu sheegi doono saa ku joojin lahayd iyo xalkeedana aan kuu sheegi doonaa waa 9 qodob qodobadan mid walbo waxaa hubaal ah in liddiisa iyo saameyntiisa trading markii la joogo inuu qof walba ku leeyahay caqabad si uu ugu hormaro tradingka caqabadahan marka aan kuu sheegi doono haddaa bilow tahay especially zaa'id ay ku anfici doonaan haddaa tahayna qof suuq advance ku jirin waxay kuu noqon doonaa xasuusin la rabo inaad joojisto qodobka ugu horeeya inaad ka fikirtid lacag sameyn markii la joogo suuqan tradingka lacagtu waa muhiim inaad ka fikirtid qaab ahaan laakiin tradingka waa wax ugu adag la rabo in markaa aad ka fogaatid inaad lacag ka fikirtid waayo waxa tradingka wax lagu shaqeeyo waa probability-dana ma ahan mid mar walba ku shaqeysa mid la hubo sidoo kale opportunity tradingka fursadaha uu bixiyo ma ahan mid maalinkaa ku siinayo saa u filanaysa laga yaabo maanta trading adiga aad rabtay inaad qaadatid laakiin fursaddii aa weysay laakiin aqli ahaan iyo maskax ahaan haddii aad leedahay suuqan waa inaad lacag sameysaa muddo hebel inaad 100,000 sameeya muddada xigta waa inaad 10,000 sameeya mise accountka challenge-ga haysto mise funding account challenge-ga haysto inaad gudbiyo muddo hebel mise live tradingka $100 aa haysto mise dhowrka $100 aa ku bilowday aad dhahdid bishan waa inaad ku daraa 50% mise 100% waa waxyaabaha ku dhiga kuna hogaamiya wax loo yaqaano psychological qaab fikirkaaga inuu bedelo bedelkana waxyaabaha ah inaad ka fikirtid mar walba lacag sababi karan ay tahay waa wax dib kuu dhigi doona wax kale la rabo inaad ka fikirtid waxaa waaye systemka ku shaqeynaysay inuu maalinkaa diyaar ku ahaado hadduu systemkaaga meesha yaalin looma baahno inaad trade-ka marka aad qaadatid trade-ka aad qaadatay aad rajeynaysid inaad lacag ku samaysidna wuxuu noqon karaa mid guul dareysta uusan noqonin midkii aa ugu talagashay mise aa lacagta ku sameyn lahayd goobashada marka lacagta dib u dhicistaas ayaa kuu sababi doonta inaad geshid xaalad mar walba lacag ka fikir ah aadan ka fikirin qaabkii tradingkii iyo systemkii wax usoo baratay aa ku shaqeyn lahayd maskaxdaadana mar walba ay kusoo lalaabato inaa un lacag samaysid waa qodobka ugu adag bani aadamka markii psychology tradingka la joogana badna lagaga hadla ay tahay inay ka gudbaan lacagta waa gadaal wax ka yimaada waa result timaada okay qodobka xiga inaad aqoon badan raadisid si aad suuqa ugu guul gaartid waaga hore waxaa aaminsanaa markaa trading bilaabayay istaraatiijiyad walbo inay shaqeynayso isku dayo inaa maalinba istaraatiijiyad kala duwan aa ku shaqeeyo maanta trade-ka aa ku dhisay smart money concept fruitskeeda iyo shuruucdeeda aa ku dhisay berin inaa mid kale u eg ICT aa ku qaato anigoo saaxiibkeyga mise qof ii dhow aa ileeyahay trade-ka uu qaatay mise la iisoo sheegaray leedahay war trade-kan fursad sela ku jirto mise baa ku jirto mise aqoon dheeraad ah maanta inaad ka baratid qof aqoon berin qof kale aad ka baratid adigiyo isku kabaayo 3 dhowrkiisha isku keenayo marka isku keenistaas waxay kuu sababi doontaa in informationkii aa haysatay kii saxnaa midkii kale dib aa kaga soo dartay inuu khaldo because fikirka waxyaabaha uu ku imaado waxay tahay in qofku wax kuu sheega ka dhageysatid kadib aad dhahayd okay war kanaa saxan kii shalay ma saxan kanaa saxan okay kan wuxuu kaga fiican yahay ninkan saanuu kaga fiican yahay kadibna aa u tagtidoo wixii saa u filinaysay iyo maqal ogaashihii inay wax ka duwan meesha imaadaan marka different mentors iyo cashiro kala duwan oo istaraatiijiyado kala duwan inaad suuqa ku baratid waa waxa isleeyahay qofka dib ay u dhigi kartaa marka waxaa keli ku haboon hal shay hal qodob hal system hal nidaam adiga xataa naftaada suuq waqti geliyay strategy adiga u aragtay kuu shaqeysa ma aha in istaraatiijiyad ay ahaadaan dadka waxyaabaha isticmaalaan mid adiga inaad gelisid waqtigaaga laakiin suuqii muddo dheer aa gelisay aa ka aragtay inuu suuqan probability saas u shaqeeyo waxa lagu dhaqmo suuqa lagu joogo tradingka lagu joogo waxa la yidhaha probability cid hubta ma jirto wax suuq uu sameyn doono qof walba wuxuu ku jooga aragti ah wixii backtesting uu kusoo sameeyey uu muddo dheer kusoo jiray unba wax ku qaata marka qodobkaa joojinaysid waa ah qodob inaad dad badan wax ka baratid si suuqa aad guul oo gaarto waa qodob la rabo inaad ka maaratid qodobka saddexaad oo as leeyahay adigana dib ayuu ku dhigi karaa inaad mar walba isku dayid inaad saxnaatid waa qodob ihaysan jiray oo mar badan anigana as leeyahay trading waagaa bilaaba iyo muddo dhow xataa iga sababtay inaan mar walba saxnaado
anigoo istaraatiijiyadda systemka tradingka haysta ayuu tradeka khasaari karaa macnaheeda maaha inaa ani khaldanahay laakiin mar walba nafteeda waxaa ka dhaadhacsiin jiray ahayd war sababtan tradekan ku khasaaraya maxay tahay shuruudii dhan waafaqay muxuu candlekan SL igaga dhacay muxuu candlekan stop mesh entry ah ka geli lahaa tradeka uu dhexda ooga laabtay waxyaabaha aan rabno mar walba waxay tahay wax anaga saaran u shaqeeyo tradingkan uu ma shaqeeyo si walba anaga u fikirno wuxuu u shaqeeyaa si ka duwan oo ku dhisan xogaal iyo nidaam anaga markaa naga madax banaan inaad saxnaatidna waa waxyaabaha kuu dhigi karo aad dhahdid okay tradingka waa inuu ahaadaa mid aniga saa u go'aami u noqdo maya adigoo systemkaaga istaraatiijiyadaada shuruudahaada wax walba ay dhammaystiran yihiin ayaa suuqii weli khasaari kartaa ugu badnaana boqolkiiba tradingka waxa shaqeeya mar walba joogtada keena waa uun system backtesting aad ku samaysaa ku kalsooneed marka macnaheedu waa inuu mar walba shaqeynayo so ka fogow aragtida ah inaad adiga mar walba saxan tahay inaad adiga mar walba khaldanaan kartid macnaheeda maaha qalad iyo sax muhiimad waxay tahay tradingka ah mid wax markaa uu doono uu sameeyo anaga waxa kaliya ku shaqeyna waxay tahay system anaga markaa backtesting badan gelnay qodobka afraad la raban inaad ka fogaatid waa qodob ah trade inaad qaadatid adigoo systemkaagii shuruudahaada wax dhiman yihiin waxyaabaha dhalinta badnaa maalin walbo training markaa bixi classida live class iyo live zoom anaga ku jirno oo linkiga halkan aan idin soo dhigi doono qof walbo markaa account XM haysta mise uu u furan yahayna xaq u leeyahay inuu live trading keeno ku jiro nala trade gareeyo trade ma qaadano ilaa shuruudeen aan ka helno sababtoo ah waxyaabaha dadka badnaa kalsoonida darageli waxay tahay oo badnaa banaanaha looga sheekay trade demo loo soo sawiro tradekan intan ay ka sameeyay maanta yaa misgareey maxaa u qaadan weysay no just tradeka micnaheeda maaha inuu maalin walba fursaddaa rabti ku siinayo laakiin waa inaad sugtaa confirmationka trade ku qaadan lahayd maybe waxaa ku qaadataa supply iyo demand oo ah suuq institution bias ku qaadataa adigoo shuruudihii confirmationkii 5 minute-ka waxba haysanin inaad kali ka fikirsid okay tradekan waa inaad qaataa sababtoo ah lacagaan raba marka taasina waa qalad gooni ah wax walba isku dayda inuu systemkaada dhammaystirnaado confirmationkaada qodobka shanaad oo asagan aad common u ah aad iyo aad dadka bulshada markay suuqa soo galayaan kadib kooda hore aysan lahayn laakiin dib ugu soo dhaca waxaa loo yaqaano cabsida fear cabsida in trade maybe laga yaabo tradedii labadii hore lasoo dhaafay saddexdii trade lasoo dhaafay inay khasaare ahaayeen tradekan haddana aa qaadanaysid ayagoo kuwii hore systemka iyo shuruuddaa sax ayaanaad khasaartay kana laga yaabo inuu tradeki ahaa kii ku siin lahaa saddexdii trade waxaa soo khasaartay lacagtooda laakiin haddana aas dhahayd una cabsatid okay kuwii horaa soo khasaaray soo kani isleedahay shaki yar uu ku galo hesitation shaki yar uu ku galo aa dhahayd okay tradekan ma qaadan karo sababtoo ah drawdownkeyga zaa'id u siiyaan marka cabsida waa waxyaabaha dib kuu dhigi kara markii trading kala jooga tradeka haddii systemka uu ku waafaqo shuruudooda ku waafaqano wax kaliya u baahan tahay waxaa waaye solid risk management waa risk management kasoo fikirtay adag percentageka maalinka accountkaada aad ka go'i lahayd khasaarada ugu talagashay inaad tradeka miiska soo saartid faa'iidada heli lahaydna marka aad u ogolaatid tradeka fursadda waqtiga uu ku siin lahaa midda kale xigto ayadan opposite oo la xigto waa greed hunguri weynida tusaale ahaan fear iyo greed waa laba iska soo horjeedo laakiin dadka bani aadamka u dhexeeyaan inuu qofkii hunguri weynaado oo u dhaho okay tradekii uu qaatay okay tradeka wuxuu gaaray tusaale ahaan meeshuu rabay agekii ugu bixi lahaa weli wuxuu aaminsan yahay in tradeka uu kor usii socon karo markaasuu break evenkii uu qaadan lahaa profitkiis uu qeyban lahaa wuxuu aaminsan yahay inuu qaato tradeka muddo dheer uu sii hayo kadib faa'iidadii London session uu ka helay inay New York haddana kasoo celiso suuqii minus uu saa ku baxo marka waxyaabaha greedka sawan waxaa wax loo yaqaano over risking inuu qofkii dhaho okay tradekan waa tradeka ugu quruxda badnaa aa helay waa inaa ku galaan lot size aad u weyn xajmi aad u weyn accountkiisii 50% ka mid ah tradekii looga talagalay $100 inuu kali khasaariyo 3% which is normally dadka badnaa dhalinta markaa tradingka lagu jiro khasaarada accountka loo ogolay kali inay 3% ahaato laakiin asi wuxuu aaminsan yahay tradekan inuu lacag ka sameeyo soo marka hungurigaa weyn ayaa sababi karo inuu tradeka asagana markaa khasaare kala kulmo sidoo kale qodobka lixaad waa waxa anigana badnaa barnaamijyada aan kaga soo hadla ay tahay inaad ka fogaatid wax loo yaqaano oo intiina badan aanan war u haynin overconfidence kalsooni dheeraad inaad siisid suuqa dada waxay ku leeyihiin suuqan hadduu sidan sameeyo waxaa qasab ah waa inuu sidan sameeyo horta suuqan shuruud asaga markaa u go-an inuu sameeyo ma jirto wax lagu keliya lagu shaqeeyo lagu khasaaro kumanaanka qof waay suuqa dadka cusub ay u khasaaraan wax kaliya ku khasaaraan waxaa weeyaan inay systemkii shaqeyna xog u haynin laakiin dadka haddana suuqii yaqaano maxay u khasaaraan waxay u khasaaraan kaliya inay kalsooni siiyaan suuqii ay aamineen in ayaga suuqii controlaan mise ay trade walbo qaataan ay faa'iido ka heli karaan so overconfidence waa qodob kale
asagan khatartiisa wata marka waa inaad ka fogaataa kalsooni dheeraad inaadan siinin trade kaliya la rabo inaad kusoo kacdid planka maalinka aad degsatay iyo nidaamka ugu talagashay inaad trade-ka maalinka aad qabatid qodobka sideedaad wax loo yaqaano over leverage in trade-ka aad ku gashid xajmi ka weyn lacagta haysatid maybe waxaa haystaa lacag yar khidmad yar kugu jirto waxaa rabtaa $100 inaad hadda maanta kaliya u badisid $200 waa over leverage sameyntiisa laga yaabo in hal trade dadka qaar ay ku gubaan account-kii dhan oo marka ay haysteen waa waxyaabaha ayagan aad u weyn mid qodobka sagaalaad ugu dambeyn lack of trading plan waa waxa qodobadaas soo sheegay oo ah 8 qodobo horeysay wax kaliya aad ku xalin kartid waa lack of trading plan inaan lahaynin qorshe ku degsan maalinlahaaga trading-ka adiga ku gooni ah adiga shakhsi aad tahay qof kalena waa shakhsi adiga wax ku go'an wax ku degsan wax qodobka ku degsan shuruudaha maalinkii laga yaabay 2 session 3 session oo jirto session ka trade gareysa peerada trade gareysa stock dhankee market dhankee kaga jirta waxyaabaha la rabo marka inaad qodobka ugu weyn la saartid oo ku xalin kar 8 hore trading plan inaad lahaatid qorshe maalmeed adiga ku xakameyn kartid trading-kaada iyo khaladaadkaada iyo guulahaaga aad ku sheegi kartid sababtaa sidaan u sameeyay maxay tahay sababta trade-kan u qaatay maxay tahay maxaa u qaadanaya maskaxdaada wax alla wixii ku soo dhacay inaad go'aamisid aad sheegtid sababta trade-ka u qaatay waa inaad qori kartaa marka qodobadaas sagaalkaas aan kuu sheegay waa qodobada kuu dibdhigi doona trading inaad guul ka gaartid waxaana rajayn doonaa inaad naftaada waqti siin doontid haddii aad channelkeena ku cusbaneed subscribe aan kaa rajaynaynaa haddii horey nala jirtayna dhiirigelin comment like then Discord link iyo live trading link yan kulli waxay yaalaan in the comment section